waa inaan aqbalna kulligeen dalku markuu dumay dhibka ugu badanna idinkaa maray dadaalkii ugu badnaana idinkaa bixiyey waxaa la soo maray waqti dadka keliya oo dadka u shaqayn jiray ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed idinkaa dalka soo badbaadiyey idinkaa dowladnimada salka u dhigay idinkaa shaqadii gudaha iyo bannaankaba idinku dhacaysay idinkaa bixiyey dhiiggii ugu badnaa idinkaa bixiyey dulqaadkii ugu badnaa idinkaa soo maray xanuunka ugu badnaa waa ogahay weli iyadoo saasa in fahamkeennu uu yar yahay in la idin siiyo abaalkii aad mudnaadeen qaybtii bulshada aad uga aadaneedeen laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay in adduunyada meel walboo la maro dhibaato walba oo Soomaaliya ay soo martay maanta ugu badan oo Soomaali soo gaartay ay tahay gabdhaha Soomaaliyeed inay yihiin gabdho aad u adag meel walba ay joogaan dunidana Soomaalinimada u taagan midnimada u taagan ka qabyaalad yar ragga ka qalbi wanaagsan ka aamin fiican dadaalkii marka aad soo dadaasheen 30 sano hadda la soo dhaafay oo dhibaatada dalkan soo gaartay idinku aad u ahaadeen walaalo iyo hooyooyin soo samata bixiyay dalka waxaa la rabaa 30 sano soo socota caruurtiina inaanay dhibkii idinku aad soo marteen aanay marin waxaa la rabaa 30 sano aad idinku soo dhibtooteen inaanu isticmaalno inay noqoto maalgashi mustaqbal fiican u dhala caruurtiina si taas marka loo sameeyo waxaa muhiim ah inaadan mar dambe bannaan ka fiirsanin waxa jira dalkan ugu yaraan 50% waa gabdho Soomaaliyeed awoodda dawladnimo waa inaa ugu yaraan nus ku yeelatiin laakiin cid idin siinaysa male haddaadan idinku u dagaalamina haddaadan idinku isku duubnaanina bulshada Soomaaliyeed oo dhan ayaa kala qoqoban laakiin idinku waxa uga sii duwantiin idinka xuquuqdiina yaa maqan maadaama ay xuquuqdiina idinka maqan tahay waa inaa isugu duubnaatiin si ka duwan dadka kale waa in gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay isku duubmaan isku duubnidaasna waxaa la rabaa inay dhasho inay xuquuqdiina idin soo celiso annagana waxaan ugu khasaba inaan aqbalno dalkan inaan ragga kaliya lahayn la wada leeyahay loo siman yahay dhibkiisa iyo dheeftiisa la wada qaybsado waxaa kaloo jirta hadda qarniga 21aad lagu jiraa rag iyo dumar waa u siman yihiin waxbarashada gabdhahaaba fiican inta badan waxbarashada iskuulada ku fiican marka aqoontii wanaagsaneed oo dalkan u soo baxday haddii aan bannaaska iska dhigno dawladnimaday u daran tahay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ay u daran tahay meel fiican oo hadda dalku jooga oo ugu yaraan horta 30% la idin ogol yahay horta waa koow inaad ka bilowdiin 30% kaas inaanay hoos uga dhacin 50% in la gaarsiiyo soo war cad ma laakiin hadda waa inaan ka bilowno doodda ah in ay dastuuriyan tahay oo siyaasiyan looga heshiiyey 30% inaad ku yeelatiin golayaasha baarlamaanka laakiin inaan ballaarino waayo oo tiraahdaan waa inaan 30% ka helno dhammaan hay'adaha kala duwan ee dawladda oo dhan marka haddii ilaahay yiraahdo aniga waxaan aad ku tashanaysaan inaad la shaqayn doono codkiina aan ku hadli doono garab idin siin doono haddii ilaahay yira oo guuleystana shaqada ugu horeyso oo bilaabi doono waxay tahay inaan niraahdo xafiis walbo dawladeed waa ugu yaraan 30% inay ku lahaadaan gabdhaha marka afarta sano ku xigtana waa inaan insha Allah 50% gaarsiino laakiin waxaan rabaa inaan idinku dhiirigeliyo idinku waa ka duwantihiin dadka kale
ololaha aad ku jirtaan waa olole aad ugu jirtaan idinka jiritaankiina iyo mustaqbalka carruurtiina waa olole xaquuq lagu raadinayo waa olole cadaaladda la raadinayo idinka in laydinka bilaabo waa ma aha inaa xuquuqdiina qof kursi ku fadhiya ka baridaan xuquuqdiina dastuurka waa dastuuriyan dadka Soomaaliyeed dalkooda waa u siman yihiin shaqooyinka waa in lagu tartamaa oo qofku aqoonta badan la siiyaa laakiin gabdhaha Soomaaliyeed xuquuqdooda in la sugo waayo shaqadaas soo qabateen oo ku mahadsantihiin haddana waxaan idinku dhiirigelinayaa dadaalka aa wadaan waxaan aad idinkugu boorinayaa rag waxba ma hambeeyaane ha ka aqbalinina inay xuquuqdiina haystaan anna waa idin garab taagana waa mahadsantihiin